wafdigu wuxuu ka qayb geli doonaa shirka arrimaha Soomaaliya looga hadli doono ee ka dhici doona London muhiimadda shirka waxay tahay in wax laga bedelo qaabka ay beesha caalamku u caawiso Soomaaliya oo ay noqoto wax dawladda Soomaaliya oo go'aaminayso waxyaabaha aan rabno 4 sano soo socota in laga caawiyo taasaan la tagaynaa labada issue ama labada arrimood ugu waaweynna waa dhaqaalaha iyo amniga oo aan isleenahay bulshada Soomaaliyeed haddii ay nabadgelyo heshana waxay helaysaa maalgashi haddii ay maalgashi heshana waxay helaysaa nolol wanaagsan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha UK iyo madaxa xogayaha guud ee qaramada midoobay shir gudoomin doona madaxweynuhu sidoo kale wuxuu la kulmi doonaa jaaliyadda Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada London waxaan rajaynaynaa insha Allah safarkaas inaan kala soo laaban doono natiijooyin wax ku ool ah oo dalka iyo dadkaba wax ka bedeli doona insha Allah